amniga caasimadda dalka Cameroon ayaa ah mid u eg in uu faraha ka sii baxayo. 5 qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay bartamaha caasimadda ee Yaoundé. Qaraxan oo ah nooca gacan samayska ah ayaa noqonaya kii saddexaad 2 toddobaad gudahood. Ciidamada amniga ayaa howlgaleen culus ka wada gudaha caasimadda, iyagoo sheegay in ay ku raad joogaan ciddii geysatay falkan. Waxaana booliisku sheegeen in ay hayaan dad ay ku tuhunsan yihiin inay lug ku leeyihiin qaraxan, balse weli may shaacin magacyadooda iyo tirada ay hayaan. Tuhunka ugu weyn ayaa tilmaamaya in uu isku dhaca xukuumadda iyo jabhadda Anglophone sii xoogeysanayo, balse rabshadahaas ayaa 200 oo kiiloomitir dhanka koonfur ka xiga caasimaddan qaraxyadu hadheeyeen. wixii ka soo kordha kala soco Alool News.